السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يا سود وهذا عبد الغني حدي وتكون mahadsantihiin waana idinka mahad celinayaa daawashada muuqaalkan. walaal waxaan doonayaa inaan kula wadaago awoodda uu Ilaahay nagu manaystay kaliya inay tahay maskaxda. maskaxda sidee baynu kobcin karnaa maskaxdeena? walaal kobcinta maskaxda kaagama baahna inaad jimicsi samayso, kaagama baahna inaad cunto badan cuntid, laakiinse waxay kaaga baahan tahay oo kaliya inaad wax akhrido. siduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa inoogu sheegay aayaddii u horreysay ama suuraddii u horreysay ee Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam Ilaahay ku soo dejiyay waxa uu ku yidhi Nabi Maxamed isagoo umiya aan waxba akhriyin waxna qorin ayaa waxaa la amray oo lagu yidhi iqra bismi rabbika alladii khalaq. markaa walaal anna waxaan adiga kugula talinayaa inaad badsato wax akhriska, inay kaa ag dhowaadaan kutubta iyo buugta. walaal waxaan doonayaa inaan kula wadaago 6 faa'iido oo uu leeyahay wax akhrisku. 6 faa'iido ee uu wax akhrisku leeyahay waxaa ka mid ah books ama readingku waxa uu improve gareeyaa imaginationka, takhayulkaaga, khiyaalkaaga ayuu horumariyaa ama uu kobciyaa. number 2 readingka ama buugtu waxay horumariyaan develop critical thinking, waxay horumariyaan fikirkaaga wanaagsan ayay kobciyaan ama ay kor u qaadaan. number 3 books ama readingku improve your creativity, waxay kobciyaan ama ay kor u qaadaan hal-abuurkaaga, creativity-gaaga. qodobka 4 books ama readingka waxaa loo yaqaano motivate you, adiga ayay ku motivate garayaan, adiga ayay ku dhiirigeliyaan, adiga ayay kor kuu qaadaan. readingku waxa uu kobciyaa ama uu kor u qaadaa maskaxdaada. improve your brain, improve your brain. qodobka ku xiga reduce stress, wuxuu yareeyaa waxaynu u naqaano stresska ama aynu idhaahno isku buuqa. walaal waxaa jirta oon doonayaa inaan kula wadaago daraasad la sameeyey. daraasaddaasi waxay odhanaysaa boqolkiiba 88% billionaires-ka dunidu waxa ay maalin kasta 30 daqiiqo ku bixiyaan reading ama wax akhris. maxaa yeelay si ay noloshooda u horumariyaan, si ay maskaxdooda u kobciyaan, ayay maalin kasta intaasoo daqiiqo 30 daqiiqo 30 secondska wax ku akhriyaan, waxna ku diyaariyaan si ay u kobciyaan ganacsigooda ama hantidooda. walaal adigana maxaa kaa hortaagan inaad wax akhrido? maxaa inaga hortaagan inaan wax diyaarino? waxaan kugu waaninayaa, waxaan kugula talinayaa inaad wax akhrido oo aanad isdhiibin, oo aanad isdhiganin, si ay maskaxdaadu u kobocdo, u korto, u keento hal-abuur cusub oo aad la timaado. waana kaaga mahad celinayaa mar kasta daawashada muuqaalkan oo mahadsantihiin.